dowladda federaalka ee Soomaaliya markan waxay soo xireysaa albaab kasta oo mucaaradka ah waxaana loo adeegsanayaa awood military dastuurkii wax ka bedelkiisa dowladdu kol hore ku dhaqaaqday doorashooyin qof iyo cod ay qabanaysaa qof kasta oo ka soo horjeestana tallaabo laga qaadaya muqdisho xaaladeedu waxa leeyahay waa mid cabsiya ciidan aad u badan ayaa la duldhigay guryaha mucaaradka mana jirto laba mucaarad oo islaameys kuwa dalka dibadiisa ay ku maqan yihiin waxa la sheegay inay u dawarsatageen ama dhaqaale ay ka raadsanayaan halka kuwa gudaha joogana aysan ba is arkin oo ay ku aruureen agaarka xeyndaabka xalane ee muqdisho madaxweyne xashi maxamuud ayaa 5 cisho oo ku sugnaa magaalada baydhabo dib ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliya ee muqdisho maanta waxaana dawladdu ay soo bandhigtay dowlatus military aan inaba caadi ahayn ciidan aad u badan gaadiid birta culus oo hadda dawladda ay la soo wareegtay oo Turkidu ay ku saaciday ayaa la soo bandhigay waxa muuqanaysa in la isu adeegsanayo cudud ciidan oo xoog leh bal ila arag gaadiidkan iyo ciidankan tababarka sare qaba ee dowladda federaalka ay ku caburinayso mucaaradka sida ay ku andacoonayaan waayahay waxaan eegaynaa wararka ka imaanaya magaalada muqdisho madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne farmaajo ayaa hadda dalka gudihiisa ku sugan iyadoo ay maqan yihiin madax badan oo mucaarada oo dalka dibadiisa ay jiraan kuwa qaar dalalka carabaha ay jiraan kuwana Yurub ay ku maqan yihiin waxaan eegaynaa halka khalad ee dawladdu ay sameysay markii lafta gareen halkaas laga saaray ee xiriirka koonfur galbeed la xiriir hal khalad baa dhacay khaladkaasi muxuu yahay aniga ayaa ku haya afhayeenkii lafta gareen qoraal xasaasi ayuu soo saaray isaga oo dibad joog isaga lafta gareenba waa Bagamondo waxay joogan magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya wararkii ugu dambeeyay ayaan ku hayaa saaxiib soo dhow hadii aad channelka cusub tahay dhaqaaji oo subscribe saar siina share garee oo la wadaag saaxiibadaada like tuna waa noo muhiim aragtidaadana qayb faalada ku reeb waa mahadsantahay waxaan ku bilaabayaa magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxa ku sugan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Professor Xashi Maxamuud oo maanta magaalada dib ugu soo laabtay mudooyinkii ugu dambeeyay sida laga wada dhagsan yahay madaxweynuhu wuxuu ku sugnaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo ka dhacay isbedel kadib 8 sano oo uu maamulkaas haystay Cabdicaziz lafta gareen iyo xubno isaga aan ka fogeyn oo qoyskiisa ah dawladdu waxay bilowday marka in caburin iyo sidoo kale cagajugleyn bal isugu daro xubnaha mucaaradka oo iyagu laftirkooda ka badbadis badan sameeyay sida lagu eedeynayo Cabdiraxmaan Cabshakuur warsame madaxweyne Sheekh Shariif iyo ninka la yiraahdo Khayre waa ragga hawiyaha ah ee madaxweynaha ku dhariga ah haddana taagtaaga badan uu ku jiro oo isbidaya awoodda isla ciidan baad heli kartaan madaxweynuhu waa arbushi kartaan 15 May xilka waad ka ridan kartaan iyo waxyaabo kale ku fikireen laakiin dawladdu waxay adeegsanaysaa baa la yiri cudud ciidankii ugu badnaa ayaa maanta Muqdisho lagu soo bandhigay gaadiid birta culus oo isaguna noociisa aan hore loo aragna waa la soo bandhigay gaadiidku waliba noocyo kala duwan isugu jiraan gawaarida gaashaaman ee birta adaga gaadiidka cabdibilaha ay Soomaalida u taqaano gaadiidka kale ee markaasi madaxdu adeegsadaan nooc walba hubka saaran ayaa hub kale oo casri ah oo ka yaabinaya intaas oo dhan argagixisada ma lagu la dagaalamayo sida ay xogtu leedahay waxaana ay sugayaan ammaanka caasimadda oo laga cabsi qabo in khalqal ay ku furaan raggan mucaaradka ee kursidoonka ah mucaaradku waxay leeyihiin madaxweynuhu waqtigiisa 12 May uu ku eegyahay baarlamaankuna waxa uu harsan 6 maalmood maadaama 8 Abriil la marayo baarlamaankuna iyaguna waxay rabaan inay gaaraan kuwa mucaaradka marka laga reebo kuwa dastuurka meelmariyay 14 Abriil 2027 oo hal sano oo dheeriya oo dastuurka ku meel gaarka markaasi ay ku gaaraan ayay doonayaan laakiin xubno badan oo mucaarada ay arrinkaas diidan waxayna dawladdu ciidankii ugu badnaa dul dhigtay guryaha mucaaradka iyada oo la kordhiyay baraha control ee caasimadda gaar ahaan degmooyinka waa Bari Xamar Jajab Xamar Weyne sidoo kale degmooyin ay ku jirto Wardigley wadajir agaarka garoonka aadan cadde meelaha oo dhan waxa la sheegay in xarumaha control ee ammaanka laga sugo ama askarta ay ku sugan yihiin la kordhiyay askartuna waxa laga dhigay sida xogta ay sheegayso isku dhafo isugu jira military iyo police iyo soo kale kuwa noo sugida dhammaan dawladdu waxay tallaabooyinkan ugu gol leedahay in dhaqdhaqaaqa mucaaradku yaraado lana xakameeyo soo kale shararka magaalada ka dhacayna ay ahaadaan kuwa dhif iyo naadira sababtuna waxa weeye in dawladdu ay qabanayso dhowr iyo 50 sanadood kadib doorasho qof iyo cod oo dalka u jeesanayo horumar
mucaaradkuna ay cagaha ku dhagan yihiin oo ay diidan yihiin horumarkaas sida dowladdu ay ku andacoonayso laakiin mucaaradku iyaguna waxay isu arkaan rag wax saxaya laakiin marka il gaara lagu eego dhaliishooda uma muuqato kuwa wax saxaya sababtuna waxa weeye in ay ku hanjabayaan dagaalo iyo dib baa loo laabanaya 1990kii baa laga sheekeynayaa badbaado qaran baan ku dhawaaqaynaa ciidanka qaranka la kala jibinaya waxyaabo noocaas oraahdaasna ma aha marba ama sinaba ku haboon ma aha sababtoo ah in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaybihii kale ee ciidankaba la kala jabiyo marnaba ma aha wax sharciya sida markaasi siyaasiyiinta qaar ay qabaan haba u badnaadaan kuwa dhinaca dawladda oo jajaara adigu sidee baad u aragtaa geesta kale waxaan rabaa inaan kula wadaago gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed Cismaan Muxyidiin Shaatax oo ra'iisul gaarsi telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda guud ee Koonfur Galbeed maadaama isbedel weyn uu ka dhacay maamulkaas gudoomiye Shaatax ayaa sheegay in markii hore uu khalad doorasho sameeyay Cabdicasiis Laftagareen isla markaana tallaabadii xigtay ay qaaday dawladdu aynan ahayn markaasi in ay iyaduna ahayd mid kale oo khalad ah sida uu hadalka u dhigay waa qalad lagu sax dawladdu wuxuu qabaa gudoomiye Shaatax hadii aysan tallaabadaas qaadi lahayn in markaasi aysan khalad iyadu lahayn annaga waxaan u arkaynaa Laftagareen qaabkii uu sameeyay doorashooyinka aan markaasi aanay ahayd khalad waa ma aha khalad uu la jeedaa tallaabadii ka dambeysay ee ay qaaday dawladda federaalka in iyana khalad ay ahayd maxaa yeelay nidaamka federaalka ayay ka soo horjeedaa ayuu yiri gudoomiye Cismaan Muxyidiin Shaatax oo ururada bulshada rayidka madaxda gudoomiyaha ayaa soo kale sheegay in dibkii dhacay lagu xaliyay dib kale isla markaana mushkilad hor leh laga abuuray Koonfur Galbeed isaga oo sababta ku sheegay in qaabka loo wado aanay ahayn sharci markaasi nidaamka dalka waafaqaya iyo dhinac kastaba aysan ku banaaneen sida uu hadalka u dhigay waxa kale oo intaas ku daray hadii problem lagu xaliyo problem kale waxaad abuurtay dhibaato kale ee xal ma aadan sameyn kaasna wuxuu abuuri doonaa mid kale runtii mar kale lagama maarmo in la helo xal waare ayuu yiri Cismaan Muxyidiin Shaatax gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu xusay in inay habooneed markaasi in lagu dhaqmo dastuurka Koonfur Galbeed lana ixtiraamo nidaamka federaalka ah si loo xoojiyo howlaha maamulka ee Baydhabo si kastaba ha ahaato dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la xusuustaa in ay markaasi la wareegtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyada oo markaasi dawladdu si buuxda gacanta uga dhigtay halkaasina uu ka baxay nidaamkii maamulka South West Cabdicasiis Laftagareen ayaa dibad jooga waxa kale oo halkaas laga saaray madax kale oo iyaguna awood isbidayay muddo dheer sideebaad u aragtaa dawladdu mayada khalad ka lahayd mise maamulka ayaa lahaa afayeenkii Laftagareen oo dhawaan Nairobi ka soo hadlay waxa uu sheegay in wixii dhacay ay ka xun yihiin reer Koonfur Galbeedna ay yihiin dad ilbaxnimo iyo gobonimo u saaxiiba sidoo kalena aanan marnaba suuragal ahayn aanan la aqbali karin in markaasi la kala furfuro sida uu hadalka u dhigay waa mahadsan tahay waxaan kula wadaagayaa muuqaalka gudoomiye Shaatax ee ila daaw bismillaahi rahmaani rahiim horta aad u mahadsan tahay runtii qalabkaas aan soo jeedinay laba arrimood baan ugu dhaliyay waa mid koowaad shirka golaha wada tashiga qaran waxaan u maleynayaa hadaan qaldeen inuu ahaa kiisii lixaad hal shir oo aan ognahay oo wada tashi ka horna aan laga sameeyay kadibna go'aamadii ka soo bax laga sameeyay ama laga dooday baan arkin hadii hal dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka hogaamiyaasha iyaga shirka yimaado iyaga baa go'aanadana qaato kaas waxaa noo muuqatay in heshiiska maanta ay soo saareen inaanu wada tashi badan uusan soo marin xog ururin badanna aanan laga yeelan qodobka labaad waxaan ognahay baarlamaanka xilligii hadda sessionka hadda xirmay oo kii labaad inuu hameynaa dhowr sharciyo ayuu ansixiyey baarlamaanka hadda inta uu jiro sharciyo qaarkood ma aysan marin dhageysi dadweyne sharciyo qaarkood waqti badan lama siinin ansixintooda waxaad moodaa in aada loogu degdegay taana hadhow waxay noqon doontaa mid dib noogu soo laabato marka maadaama heshiiska maanta ka soo baxay golaha wada tashi qaran
uu ahaa mid runtii masiirka siyaasadeed ee dalka wax ka bedelaya jiheynaya dastuurka dalka taabanayo runtii in sidii loogu degdegay kuwii hore aan loogu degdegin fursadda la haysta waxay tahay mudanayaasha baarlamaanka inay tixgeliyaan dadka ay matalayaan oo ay siiyaan waqti dheeraad ah heshiisyadan sidii loogu tashan lahaa oo u dhaqan lahaayeen kuwa runtii dadka iyagoo ku wada kalsoon ama intooda badan ku kalsoon ogna meesha ay heshiiskan uu maraayo ee cidda fulinayso ay markaa ay baarlamaanka ay u codeeyaan aysan naqan mid keliya 3 xiirin oo baarlamaanka gudihiisa dhex maro hore laga ansixiyay taas ayaan ugu digeynay oona ka codsanaynay mana naqon doonto inaan aan ku harno annaga shirjaa soo jeedinay kulmaa la qaadan doona haddii alla yidhahdo guddoonka baarlamaanka waa tahay waxaad ka digteen wax bulshada intooda badan ay soo dhaweysay oo ay ku dhex jirto doorasho qof iyo cod ah in la bilaabo oo sanadkan sanadka ku xiga laga qabanayo deegaanada degmooyinka maamul goboleedyada iyo federaalka intuba cabsida aad aragteen oo aad ka digaysaan aad idinkaga muuqato go'aanadaas maxay tahay aniga horta go-aankaas wax cabsi ah kama muujin ayadaan usoo dhaweynay dalka in laga qabto doorasho qof iyo cod ah waxyaabaha aan inta badan aan aragnaa waxay tahay go-aamada dowladdu ay gaaraan haddii ahla dowladda federaalka ama dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo qaarkood u muuqda tallaabooyin wanaagsan ama go-aamo fiican inta badan ma maraan process oo sax ah oo lagu gaari karo go-aanadaasiito waxaa inta badan lasoo hormariyaa maxsuulka ka soo bixi lahaa processka annaga marka inta badan markaa awalka muujinaya waxyaaba qaarka awalka muujinaya waxaa waaye war nidaamka loo maraya hadduu qaldan yahay natiijada si kastoo u fiican natiijada aragti oo fiicnaanteeda ma fiicnaanayso saas darteed doorasho qof iyo cod aadan u soo dhaweyn waana taageersanna waxaana rajaynaynaa oon ka shaqayn doonaa doorashada soo socoto si alle siday ku rigan lahayd inay noqoto in doorasho qof iyo cod la qabto balse waxaan walka aan qabnaa waxa uu yahay haddii la yiri guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha la isku daray la leeyahay waxaa soo xulaayo maamul goboleedyadii isla markaan aan ogsoonnahay maamul goboleedyada inay ahaayeen kuwii baarlamaanka hadda joogay soo xulay oo loo idmay inay doorashada baarlamaanka 11aad ay qabtaan sidii loo qabtana aan ogsoonnahay in inta badan 90% aysan dhicin in doorasho oo sax ay maraan waxaa walwal ka qabnaa marka haddii iyaga maanta haddana gacanta loo geliyo nidaamka doorashada in aan la gaari doonin doorasho qof iyo cod ah tan kale awalka ka qabna waxay tahay waqtiga loo qabtay doorashada oo aad u yar wuxuu sababi doonaa in wax badan laga boodo iyadoo waqtiga la rabo in laga gaarsiiyo waxaa meesha ka baxaya marka in wax kasta oo dadku ay markaa ay ku kalsoonaan karaan inay meesha ka baxaan taana waxay dhaawici doontaa ama sii xooji doontaa hadda kalsoon darada shacabka ay weli ka qabaan dowladda maxaa yeelay dowladda hadda hal sano jirtaa halkii sano oo dowladda jirtani waxaa lagu jira dagaal oo deegaanada mataqaanaa shabaab gacanta ku hayaan dowladda la wareegayso maadaama marka ay halkaas sano aanan wax badan dadaal badan aan la gelin tiiraayadii ka dhalatay nidaamka doorashada loo qabtay oo ahayd in halkaas sano dadku ay ka bogsoodaan oo dadkii dagaalkii ay galeen kalsoon daraas marka waxay isleeyahay oo weli meeshii weli da jirto in haddii hadda la yidhaahdo sharciyan aan loo dejin nidaamka lagu soo xulayo guddiga doorashooyinka aana sharci loo sameyn doorashooyinka waxaa ka dhalan doonta marka in ay timaado in dad nijecleysi ah guddiyada loo soo xulo nijecleysina ma shaqeynayo oo horaan u aragnay iska qabsigooda marka taa waa waxa aan kala waleynay kama walwaleyno qof iyo cod doorasho in la qabto waan taageersan go'aanada baarlamaanka ay maraan sidii baarlamaankaba horay uu u marsiiyey sharciyo badan oo dood iyo aragti kala duwan laga qabay maxaa laga filan karaa aniga waxaan isleeyahay haddii baarlamaanka aanan talo badan iyo dood badan iyo wadatashi badan aanan gelin heshiisyadan intuu fududa sidiisa ku gudbiyo hirgelinta heshiisyadan
waxaa ka dhalan doonto kow inay qabsoomi waayaan sida loogu talagalay, labo khilaaf siyaasadeed inay ka dhasho, saddex kalsooni daradii bulshada ku jirto inay sii badato. marka dowladnimadii iyo heerka higsanayn iyo meeshaan u soconay ayaa ka gaabinaynaa. marka taas waa midda aan rabnay inuu baarlamaanka uu xoogga saaro oo aad xooggan u saaro sharciyadan maaha oo keliya qodobada meesha ku qoranaya sida lagu hirgeli karo iyo siday ku hirgeli karaan sharciyan labadaba inay ka fiiriyaan. taa waa markaas leenahay xooggan u saareen shirkeena maantana doodiisa ay ku salaysnay. aad baa mahadsantahay.